السلام عليكم جايز كسر هذا عشرة دني أونلاين كأنا وبرتين ما أنت وحارنا إن شرحات يركب بحنو ما دام عطسي فربنا أرضين نوع مادين موضوع عصب أما عوان عصب والله ما يحب حي استوباثولوجي تخصص محلها ومحاكو بركرتها ومحله يقانا تخصص كسر من ما أنت نافلان قينو نلا دعوة بل استوباثولوجي محلها كلمة استوباثولوجي هيستو وحلا كان مينس وحلا يقانا تيشو جرك بني آدم كانوا برتا باثو مينس وحلا يقانا diseases عذرة كلها تيشوز لوجو أملوجي وحلا يقانا study وبرشدة عذرة كلها وحلا يقانا تيشوز كواي marka histopathology ka saala waxa loo yaqaan marka waxa la isku dhaafaa full form waxa loo yaqaan pathology histopathology marka laga sheekeynayo laboratory aan waxa lagu bartaa number 1 waxa baranay cadka markii la soo gooyo oo qaleenka dhakhtarka oo soo sameeyo dhakhtarka wuxuu sameeyay qof warbiyaano wax ka baar cancer cudur laga rabaa in laga baaro ama cancer runta la baara ama waxa la baara cancer kaliya la baara ama cancer caloosha la baara any organ oo wax ka baaraya markii cancer ki wixii laga baaraa la soo qaado cadka la soo gooyo hilibkii la soo gooyo cadka markii la soo gooyo waa soo qabatay waxa sameeyay waxa loo yaqaan fixation number 2 processka loo yaqaan sameeyay grossing ama gross examination sameeyay waxa sameeyay gross examination markaas meesdan waxa loo yaqaan tissue processing waxa sameeyay tissue-ga waa la process gareena then number 4 waxa loo yaqaan tissue embedded number 5 waxa loo yaqaan oo shanaad waxa loo yaqaan tissue embedded waxa xigo staining tissue embedded waxa xigo tissue cutting waxa la sameeynaa tissue-ga la jaraa waxa la sameeynaa tissue cutting waxa la sameeynaa tissue-ga waxa la sameeynaa waa la jaraa number 6 waxa la sameeynaa staining process waa mid ugu dambeeyay oo lagu baaro cadka la soo jaray waxa la sameeynaa staining process marka lixda step la maraa histopathology-ga step kood waxa loo yaqaan fixation wixii hilibka la soo qaaday inuu san dhimanin ama dead body oo naqan oo san urin isbedel ku dhicin waxa la sameeynaa fixation chemical u daraya jira fixation waa sharxeena fixation la sameeynaa dan waxa ku xiga crossing examination dan waxa ku xiji doona tissue processing loo sameeynaa dan tissue embedded maxaa la sameeynaa iyo maxaa loo yaqaan tissue cutting see waxaan cadka loo jaraa iyo staining process intaan lixdan step ku baranayna waxa ugu hore step kood waxa loo yaqaan fixation fixation waxa la sameeynaa markii cadka la soo gooyo oo dhakhtarka soo gooyo wuxuu dhaxgeliyaa baalka oo taqaaniin oo loo talagalay container waxa loo yaqaan tissue container loo yaqaan tissue container ka dhaxgelinaa waxa loo yaqaan tissue container loo yaqaan container ka markuu dhaxgeliyo jabka la soo gooyo hilibka cadka inta uu ugu jiro dan waxa loo baahnaa in lagu daro some chemicals lagu daraa some chemicals lagu daraa marka waxa ugu horeeya number 1 waxa ugu horeeya formalin waxa lagu daraa formalin kan la isticmaalo number 2 waxa la isticmaali karaa glutaraldehyde la isticmaali karaa number 3 waxa la isticmaali karaa waxa loo yaqaan picric acid la isticmaali karaa number 4 waxa la isticmaali karaa alcohol intaan isticmaali kartaa alcohol-ka waxa noqonaa 99% oo noqonaa loo yaqaan alcohol 99% loo yaqaan marka fixation-ka waxa la sameeynaa tissue cadka la soo gooyo jabka inta lagu soo riday intaan chemical mid kamid ah ku darsanay maxaa loo daraa formalin-kan oo kale waxa loo isticmaalaa iyo dhamaan reagent-yada waxa loo talagalay waxa loo isticmaalaa dead body aan oo san dhimanin
kan ugu ron ugu fiican waxa loo yaqaanaa formalin kaas ugu ron formaldehyde-ka asaa waxaa loo isticmaalaa cadka lagu dhex shubo marka lagu dhex shubo cadkaas ma dhimanayo 24 saac bil sanado oo noolaana waxaa tusaale ugu filan qofka meedka markuu dhinto kale meedka dead body dhintay qofka mar alla markuu dhinto seeleela markuu dhinto eelkiisa la leeyahay maxaa la sameynaa meel waxaa la gelinaa oo loogu talagalay meedka la geliyo sanduuqda iyo armaajayaasha aragtay la soo jiidaa la xiraayo waxaa ku dhex jiro kiimika ku dhex jiro marmarka qaar marka la furaayo qaaca ka soo baxayo qaacaas waxa waaye formalinka wuxuu sameynaa oo mabaxoo sameynaa vibration oo sameynaa marka dead body waxa lagu shubaa formalin ma dhimanaya marka bil 2 sano 3 sano wuxuu ku dhex jiraa jirkiisa wuxuu ku dhex jiraa qaanada ama sanduuqa ama xarunta loogu talagalay in meedka lagu kaydiyo afahanta marka xarumahaas loogu talagalay waxa loo yaqaanaa forensic department marka aniga cad yar kamid jirka bini'aadamka laga soo gooyay waa dhintay cadkaas intoosan cadkaas inta wada baabi'in oo dead body isku bedelin oo qarmuun noqonin waxaa la sameynaa lifeinkiisa la ilaalinaa waxaa la sameynaa marka tissue fixation kana la ilaalinaa formalin la isticmaala glutathione chemical any chemical la isticmaala chemicalka marka ilaa iyo waxaa loo talagalay inta loo gudbinayo shaybaarka laboratory inta loo gudbinayo chemical lagu dhex rido waa la soo qaadaa shaybaarka la keenaa inta laboratory la keenayo waxaa la isticmaalaa loogu talagalay in la isticmaalo baalka loo yaqaano fixation marka kaasa waxa loo yaqaanaa fixation kaasa lagu bartaa number 2 waxaa noogu xigo waxa loo yaqaana crossing waxaa noogu xigo cross examination waxaa noogu xigo cross examination waxaa la sameynaa waxa loo yaqaana cross examination ka la sameynaa waxa loo yaqaanaa cadkii la soo gooyay oo dhakhtarka soo gooyay aniga aan sameynay fixation aan ku sameynay chemical aan ku darnay oo cusbadii iyo wasakhdii iyo ku jirta qaar aan ka nadiifinay waxaa la sameynaa marka waxaa la rabaa meesha exactly oo boobku badan yahay ama kansarka uu ku badan yahay la soo gooyo yani cadkii la keenay cadkii markii la keenay exactly positionka uu ku badan yahay dhibaatada uu ku badan yahay waxaa la sameynaa waa la cabiraa waxaa lagu sameynaa measurement waxaa la sameynaa cabir markii measurement la sameeyo oo la qiyaaso inta centimeter ee taa la ogaanaa ama sometimes centralka laga cabiraa ama waxaa laga cabiraa sometimes meesha cadka uu ku badan yahay boogta dan waxaa sameynaya intuu ku badan yahay boogtaas waxaa soo qaadanaya sectionka wixii lagu jaraayo dan cadkaa soo gooynaya cadkaa markaa soo gooyo areadan waxaa loo yaqaanaa cross examination area cadkaa soo gooynaya bahal oo saan u yaalo oo waxaa loo yaqaanaa mold ku dhex riday waxaa loo yaqaanaa mold caag waaye jabka la soo gooyo la dhex gelinaa jabka markii caag la dhex geliyo molding aa sameynaya caagii waxaa dhex gelinaya jabkii caagka la soo gooyo gelinaya kan waxaa loo yaqaanaa waxa waaye tissue aa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa tissue jirka bini'aadamka laga soo gooyo jabkaa soo qaada marka inta dhex gelinaa inta markaa dhex geliyo dan crossing examination waa sameeyey crossing examination markaa sameynaysa marka waxaa lagu dhex sameeyaa bahal loo yaqaano waxaa loo yaqaanaa laminar airflow waa inaa haystaa laminar airflow haddaanan qabin bahal loo yaqaano laminar airflow haddaanan qabin oo geed weyn oo sawirka hadda shaashada kaaga muuqdo waxaa loo yaqaanaa laminar airflowga haddaanan qabin oosan meesha ii oolin ma samey kari baalka ama jarjari karo laminar airflowga wixii muqallafaad ama wasaqaad oo dheeri oo meesha yaal wuxuu sameynaa wuu nuugaa bahal oo kor u qaadanaa hawada u raacsiinaa marka faa'iido badan uu leeyahay marka crossing examination kaasaa la sameynaa crossing examination qof walba oo dhakhtar ama qof walba oo areas galaayo waa inuu talaalan yahay jirkiisa waa inuu nadiif ka yahay cudur walbo ilaa hilibkan mar alla markuu sameynayo waxbaa kusoo filqi karo dhiigga iyo muqallafaadka qaar oo ku haray markii gudaha lakala dilaaciyo filqa korkiisa gaari karo maaskoo wataa gacmahana gloves ugu jira korkiisa taaban karaa waa inuu qofka qabaa oo ka shaqeynaya meeshaan waa inuu qabaa HBAGS talaalkan waa inuu qabaa HBAGS 1 2 3 talaalkan oo cagaarshooga waa inuu qabaa iyo cudurrada kale oo caadiga ee normalka waa inuu ka talaalan yahay hadduusan qofkan talaal jirkiisa qabin oo cudurkan HBV ka talaalnayn cadkaan la gooyo hadduu dhiiggiisa ku filqo waxaa laga yaabaa qofkan inuu cagaarshoog qabay hadduu cagaarshoog qabay definitely waxaa qaaday cagaarshoog qaaday marka hadda waxaan fahanay fixation iyo waxaan fahanay crossing fahanay fixation iyo crossing fahanay waxaa nooga xiga marka waxa loo yaqaan tissue processing nooga xigo tissue processing maxaa lahaa
number 3 tissue process maxaa la tissue process waxaa la maraa steps loo yaqaan number 1 waxaa la maraa dehydration la sameynaa waxaa la maraa clearing waxaa la sameynaa clearing la sameynaa wixii la nadiifiyo iyo waxaa la sameynaa impregnation waxaa la sameynaa يعني saddexdan process maxaa la maraa dehydration la sameynaa iyo clearing iyo impregnation processka wuxuu isahla in aan isticmaalo machine loo yaqaan tissue process na isticmaala cadki wuxuu igu dhex jiraa baalka loo yaqaan molding waa soo qaada waxa dhex gelina baalka loo yaqaan machine-ka had shaashada kaaga muuqdo waxa loo yaqaan tissue process machine loo yaqaan mid walba marka waxa dhex jiro kiimika ku dhex jirta formalin ku jiro waxa ku jiro xylene ku jiro waxa ku jiro alcohol ku jiro kiimikaladaas ku jiro buffering wax ku jiro daawooyinkaas meeshaas ku dhex jira arkoosid mid kasta wuxuu sameeynaa marka inuu processing oo marsiinayo processing of dehydration oo sameeynaa removable of some wuxuu ka saara waxyaabaha oo ka koobnaay cadkaas cleaning oo sameeynaa wasakhdii oo ku hartay oo ka nadiifina impregnation la sameeynaa impregnation maxaa loo sameeynaa waxaa in la nadiifiyo waxyaabihii ku hare muqallafaadkii waxyaabihii ku hare baalka loo yaqaan cadka la soo gooyo jirka bini'aadamka cusbada ku jirtay iyo kiimikalka iyo sokorta wixii ku jirana waxaa la sameynaa removable kulli waa laga saaraa totally dan waxaa isoo muuqanayo baalka loo yaqaan molding oo nadiif ay soo muuqanayo cadka loo yaqaan tissue oo nadiif ay soo muuqanayo dan markii tissue processka aan dhameeyo waxaa igu xigo waxaa ugu baa process loo yaqaan embedding waxaa sameynaa process loo yaqaan tissue embedding aan sameynaa processkan ugu baa waxaa loo yaqaanaa processkan waxaa loo yaqaanaa tissue embedding tissue embedding waxaa laga wadaa inaan aniga baalkan iyo cadka misku dhagano ilaa cadka wuxuu ku dhex jiraa caagaana ku dhex jiraa caagaa maadaama cad ku dhex jiro in la isku dhajiyaa la rabaa waa soo nadiifiyey maho baalki cadki waa soo nadiifiyey wax wasaq kuma jiro wax muqallafaad kuma jiro inaan nadiifiyaa rabaa si uu nadiifinaa marka waxaa sameynaa marka waxaa soo qaadanaa waxa loo yaqaano waxaa isticmaalaa baraafin wax waxaa la lahay bahal u eg shumaca baalkaana isticmaalaa mashiin oo ku dhex jira marka baalkan oo ku dhex jira digrigi wuxuu gaaraa 15 ilaa 20 digrii uu gaaraa qabow waaye qawowgiisna very very high ma qabow oo mabax ma waxyaro aad dareemaysa feeling waaye waa daari digrigi meelana geene dan waxaa sameynaya marka baalkan waksiga waxaa ku dhex shubay baalkan loo yaqaano tissue molding kana ku dhex shubay tissue marka ku dhex jiro waxaa loo yaqaana tissue molding yani geedka molding loo yaqaan aan tissue dhex geliyay hadda tissue dhex geliyay waxaa loo yaqaan tissue mold Allah marka baalka magacyo badan uu leeyahay waxaa loo yaqaanaa oo hilibka cadka dhex geliyo waxaa la lahaa rings waa lahaa waxaa la lahaa mold waa lahaa iyo waxaa loo yaqaanaa sistos magac noocaasna waa leeyahay magacyo badan uu leeyahay marka baalkan caagan aa ujeediin waxaa la dhexgelinaya wax loo yaqaano tissue-ga waxaa la sameynaya marka baraafin waksigan aa lagu shubaa marka lagu shubo baraafin waksigan qabow waaye dareero waaye marka lagu shubo after a few minutes kadib waa adkaanaya yani 15 ilaa iyo 30 minutes kadib wuxuu isku bedelaa baalki wuxuu isku bedelaa adkoo isku bedelaa cadka markii inta la geliyo oo baraafin waksi loo shubeeyo wuxuu isku bedelaa adkoo isku bedelaa dan markuu adeeg isku bedelo xoogaha aad sugay uu kululaana markuu kululaado waxaa u gudbay stepka loo yaqaano tissue waxaa loo yaqaanaa tissue cutting loo yaqaano ama suction waxaa u gudbay suctionka loo yaqaano tissue suction waxaa u gudbay waxaa loo yaqaanaa tissue cutting waa la dhahaa suction waa la dhahaa marka cutting suction aa u gudbay waxaa sameynaya marka tissue oo ani aan ku shubay baalka waksiska aan ku shubay wuxuu ii sameeyey marka tissue meeshaan uu ii dhex yaalaa intuu ii dhex yaalaa waxaan ku shubay waksiska maadaama aan ku shubay intana waxaa ii buuxinaya waksiska intana waxaa ii yaal dhexdaan waxaa ii yaal tissue-ga markuu ii yaalo
waxaa sameynaa marka cutting oo gudbaa cuttingka marka uu gudbaayo waxaa la isticmaalaa machine loo yaqaano microtom waxaa loo yaqaanaa microtom mashiinkana isticmaalee microtomka waa la qeybiyaa waxaa loo yaqaanaa microtomka waa la qeybiyaa waxaa jiro soo lahay slide microtoma jiro waxaa jiro soo lahay ultra microtoma jiro waxaa jiro cold microtoma jiro waa badan yihiin waxaa jiro rotary microtoma jiro waa badan yihiin marka magacyo badan ay leeyihiin maadaama microtomka uu badan yahay slide microtoma jiro ultra microtom cold microtoma jiro marka mashiinkan microtomka soo qaade mashiinkan microtom wuxuu leeyahay sakiin uu leeyahay section oo wuxuu leeyahay wax lagu jaro markaas uu isticmaalaa marka mashiinka wuxuu sameynaa wuxuu jaraa layerkan kuwaad uu jaraa guduudkana ku dhex jiro wareega cadaan waaye cadaankii wuxuu la jaraa guduudka markii kan la jaro waxaa la soo qaadana wax loo yaqaana slide marka waxaa kor saare cadki layerka aa jarto waa jare layer oo waxa soo baxaayo oo khafiif ay soo baxaayo oo baalkan ku dhex jira ay soo baxaayo waxa ku dhex jiro cadki oo hilibkii ku dhex jiro layerkan khafiif markaan jaro oo soo baxa waxaan qabanaa slide-kan kor saara slide-ka waa kana waxaan kor saaraya marka layerka khafiifka ahay oo aan jara kor saara marka slide-ka layerka khafiifka aan kor saaro dan waxa uu gudbaa inaan isticmaalayo wax loo yaqaan waxa uu gudbaa inaan isticmaalayo wax loo yaqaano waxaa isticmaalaa water bath isticmaalaa why aan water bath u isticmaalaa because of cadkii markaan aan soo fiiqay oo hal layer aan soo qaatay layerka inta aan kor saaray layerka maadaama inta aan kor saaray wuxuu isku bedelay adeeg mana ku dhagaayo ilaa baalkii waxaan dhahnay hadaayo biyo ahay barafiimka ku dalayna biyo ahay biyihii adkaaday waa shumac oo tas dhahay camal waa shumicii wuxuu noqonaa marka dhul lagu tasgeliyo waa adkaana dan waxaa rabaa marka baalkan adkaana inaan xogaha aan kululeeyo si oo slide-kii igugu dhago water baata dhex gelina slide-ka markaa u dhex geliyo baalkii leer kor xogaa wuxuu noqonaa mid kuleel wax oo kala furfurmay intuu biyo isku bedelin waa kasoo bixine wuxuu kor saaraa baalka kor saarmaa dan wuxuu ku dhalaalaa slide-ka ku dhalaalaa wuu ku dhagaa slide-ka markuu ku dhago uusan ka faqiynin layerka dan waxaa u gudbinay waxa loo yaqaana incubationka waxaa xaqiijinaa 37 degree ka kooban yahay waxaa xaqiijinaa inuu tissue-geyga oo igu dhago slide-ka yani tissue inuu ku dhago slide-ka aan xaqiijinaa markuu tissue-geyga slide-ka igu dhago after a while 20 to 30 minutes oo igu jiraa markuu igu jiro aan kululeeyo waa soo bixinaa markaan soo bixi oo processkan aan maraysid waxa slide-kii wuxuu ii kor saaran yahay tissue ii kor saaran yahay dan waxa uu gudbay processka ugu dambeeyay oo loo yaqaano processka ugu dambeeyay waxa loo yaqaana staining process staining process-kan oo gudbay staining process-ka marka uu gudbays maxaa u baahan tahay number 1 waxa u baahan tahay 70% of waxa u baahan tahay aso borbil alcohol-dana u baahan tahay waxaa kaloo u baahan tahay 80% oo isla alcohol-dana u baahan tahay waxaa u baahan tahay 90% oo isla alcohol-dana u baahan tahay concentrationada kala duwan marka midkan hal saac oo ku jira midkan koowaad wuxuu ku jira 1 hour oo ku jira kan wuxuu ku jira 1 hour oo ku jira hal saac oo ku jira kan wuxuu ku jira 1 hour oo ku jira laakiin midkan wuxuu ku jira overnight habeenkii oo dhan oo ku jira overnight habeenkii oo dhan oo ku haynay overnight wuxuu ku jiro dan maalin kala xig waxaa bilaaba silina bilaaba silin 1 aa bilaaba silin 2 aa ku xujinaa waxaa ku xujinaa silin 3 aa ku xujinaa marka silinada isticmaal 1 iyo 2 mid kastaba 2 hours oo ku jira 2 saac kale ku jira midkan kale wuxuu ku jira 2 saac kale marka silin 1 iyo silin 2 iyo silin 3 marka aan ku shubo oo mid kastaba 2 saac ugu jiro
dan waxaa u baahanahay wixii steam process uu ka dhamaaday waxaan isticmaalaa marka paraffin wax aan isticmaalaa oo ah removable midka waxaa loo isticmaalaa reagent oo wax waaye removable of layerka waxiga oo tissue cadka i kor saarna iga nadiif waaye staininka markuu soo maray midabkiisu waa isbedelaa wuxuu iga remove gareynaa marka layerka u dambeeya remove gareynaa dan marka inta aad maraysid waxa uu gudbay inaad microscope ka kor tagaysid waxyaabihii laga baarayo tissueska jirnay oo tissueska problemada jiray ama markerka problem cancerka jiray exactly normal shape ay haysataa abnormal shape na waa arkay microscope ka arkay waa isbarbardhigay markaas waxa ka soo saar report inta centimeter jiran inta waxa jiran dhammaan processkaas waxa sameynay waa maray marka haddaad u baahan tahay marka processkan oo shanaad amaraysa staining waa ka maarmi kartaa waxa u gudbi kartaa mountain process waxa la gudbi kartaa dhammaan processes sameyn kartaa marka intaan step waxa la maraa histopathology la maraa dan waxa loo gudbaa marka reading how to read histopathology on microscope idan waxay u baahan tahay cashir kale sharaxaad kale fara badan u baahan tahay tissue xubin walba jira inaad aragtid marka waxaan cashirkan ku soo koobaynaa mowduuc ku saabsanaa histopathology maxaa la iyo fahamka guud histopathology shaqada oo qabto waxay tahay cudurrada ku dhaca tissues in la baaro tissueska jiri karo qofkaan inta functional ahaan uu jiri karaa tissue haduu jiro shaqada uu gabo qofkaan cancer ama waxyaabo lamid ah ku dhici karo haduu cancer ama marker ama tumor ama waxyaabo lamid ah ku dhaco ama apoptosis ama necrosis problem oo imaado oo cellki ama xubinta jirki oo tissue uu jirdo problemkaas wuxuu imaanaa problem oo jirkaasi oo ku siyaado qofkana ma ka daba haraayo ilaa iyo xubintaas in la tuuro ama la gooyo ama la daaweeyo waxa lagu daaweeyaa chemotherapy la isticmaalaa oo qofka waxa la gelinaa chemotherapy oo room dan waxa la sameeynaa cirbado fara badan oo chemotherapy oo qaadana si oo qofkaan inta loogu nadiifiyo dhibaatooyinka haayo some people marka problemka uu ku fogaado waxa loo sameeyaa gene therapy marka cashirkeeni intaas ku soo gabagabeynayna waana mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh